Somali best content creator adigana kuma jirtid xasasooyana kuma jiro ku wareysanayo haddii lagu dhaho qof kamida si qofkii ugu xog fiicnaa ama soo gudbiyo muuqaal wanaagsanaa ama ugu tayada wanaagsanaa muuqaalada la soo gudbiyo yaad sii leh dadka Soomaalida oo hal abuurada muuqaalada hal abuurada soo gudbiyo content creator-adan ka hadlaya kuwa heesi waxaas TikTok meelahaas ku joogo ma sheega ama qabiil caayo waxaan ka hadlayaa content creators ka saxda ah yaa sii leh Somali best content creator oo adi aan ku jirin gabagabadii su'aasha iga qurxisay hataa igu dhihi lahayd xogaha Somali YouTuber oo kale ay ugu adkaan lahayd 2 qof oo ilaa 3 qof oo aan kala doorin karnay noqon lahayd laakiin hadaa dhahay content creator hadaa dhahday macnaha in muuqaalo intii la alifo la sameeyo la duuba hadaa dhahay niyahow saaxiibkii asxaaji walkana ka salaamaya gudoomiyaha team 27 waxaan isdhihi karaa hard worker waa ninkii ugu hard worker sanaa waaye dabcan even xataa dhalinyarta team 27 ee taageera gaarsii inaad mar walba u mahadcelisaan sababtoo ah xasooy adigana waa taqaanaa waa filmaana soo duubi jirtay editka way adag tahay in ma taqaanaa aad samaysid inta muuqaal challenge ah gabdha aad ka duubayso iyo wiilal dhalinyaro ah 100 mar la qaldaayo qof telefoon ku soo dhacayo lagu soo celinayo xagga laga dhacayo waxaasoo dhan inta duubtid haddana editkeedii inaad u fariisatid oo ugu yaraan 6 saac ku baxayso aan ogahay ama 7 saacadood oo haddana maalin kasta ah macnaha hawshaas xasansooy inaysan sahlanayn nee waa dareemi kartaa aniga duubista la duubayo waqtiga galay waxa ka badan aan taaganahay editka waqtiga la edit gareenayo wax dadka ay daawan karaan laga soo saarayo marka